أحبابنا الكرام، من هنا يتبين أسلوب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مكانا والله اجتماع والله aad u wanaagsan yahay wallahi meesha kaliya lagu tagay maartay brastreska maartay markaad timaado qalbigaaga xasilooni dareemay waa meesha kaliya saaxib waxaan leeyahay saaxib diinlaan maartay diinlaan saaxib wadulino saaxib diinteena shanta Soomaaliyeed meesha kaliya isugu yimaadeen oo maalinka maanta ku aragnay iyagoo dhan walba ka socda waa markiiska fiishan soo falogiraya Allah jtii shartan hadii la weyn Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta oo dunida daafeeda ka joogtaan halkan aan joognaa waa deegaanka Burcada yar waa goobta ay ka dhacayo ijtimaaca kulanka tabliiqa ee Soomaaliland oo sanadkiiba hal mar dhaca kulankan oo isugu yimaadaan kumanaan qof oo ka yimaada deegaanada Soomaalida oo meelo kala duwan ka yimaada sidoo kale ka yimaada gobolada Jaarka iyo xataa caalamkaba maanta waxaan wareysi gaar ah la yeelan doonaa amba aan dareenkooda weydiin doonaa dadka ka soo qayb galay ee jooga ijtimaacan khayriga waa tahay saaxiibayaal waxa garabkayga taagan mid ka mid ah dadka ka soo qayb galay kulankan islaamka ee maxay ahaday Hargeysa oo soo dhow magacaada ku bilaabaya deegaanka walaal waxaan ka imaaday goob Itoobiya garanti jiga saaxib markii ugu horeysay aad ka soo qayb gashay ijtimaaca mise markii hore may waa markii ugu horeysay ijtimaaca ka soo qayb galo dareenkaaga soo aragtay ijtimaaca wallahi ijtimaaca walaal aad u wanaagsan yahay wallahi meesha kaliya lagu tagay maartay brastreska maartay markaad timaado qalbigaaga xasilooni dareemay waa meesha kaliya saaxib waxaan leeyahay saaxib diinlaan maartay diinlaan saaxib wadulino saaxib diinteena islaamka wallahi alxamdulillah aad u fiican tahay walaal meel kasta waa laga imaaday dadkina walaal muslimiinta jecel waa meesha kaliya qabyaaladii qashin iyo maartay xoogtoona lagu arkay walaal marka wallahi ijtimaacana aad iyo aad u day walaal hadda maartay ugu fiican yahay waan iskala qabsanay oo markoo dal iyo dalxiis iyo maartay waxaad dalbaad baranaysaa diin baad baranaysaa wuxuu ay dalxiis ka dhigaysaa saaxib alxamdulillah wallahi waan iska fiican anaguna maradan ay maartay Itoobiya garanti jiga saaxib dadka halka ka daway maxaad u geertay ugu baqay waxaan leeyahay maartay waa alxamdulillah rabbil alamin saaxib maartay hadda maadaama noo gabagabay yahay maartay ijtimaaci alxamdulillah wallahi saaxib nabad intaan joognay waxna dhibaato ma arkin dad walaalo maartay Allah shay soo dhaweynayay marka maartay wallahi waa alxamdulillah baan ku leeyahay walaal waan isku fiicanay dadka muslimiinta ana walaal waxaan leeyahay diinteena islaamka saaxib diin qaaliyanaysanay diinteena saaxib lagu dhiganaada saaxib walaal soo dhow magaca ku bilow iyo deegaanka ka timaaday ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكيم من جيبوتي حلقات التدوات مسكت بهاش ma markii koowaad ka soo qayb gashay ijtimaacan Hargeysa mise markii lagu jiray أيوة مركي كواد dareenkaaga maxay kula muuqataa maxaad wanaagsan أيوة والله درك وحبيب من المقطع إن مسؤولية ديننا إنه إله جل جلاله وبيادك وصاري يذكر إله جل جلاله حسان إله جل جلاله وعالم كل نسكي مدويا نور جيبوتي وان كيمناي أيوة إله لمتنا دوجو لمتنا آخر إله حق الدين يتوح نوبات أمر كله فوق قادرنا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة جود هذا الشان soo dhow magacaada ku bilaabaya waxay ka socotaa والوان دو هي مقعيق وحلا عبد الغني أحمد عبدي waxaan deganahay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Axmed Dhagax masaajidka Tawfiiq banka Sabax ijtimaacan markii ugu horeeyay timaada mise markii kala jiray wallahi ma runta fiican waa markii ugu horeysay maada dareenkaaga ka waran sida aragtaa bal maxaa kaaga kordhay wallahi de waxa soo muslimiin oo iskaga yimid gobolada Soomaaliland Djibouti Ethiopia meel ayna caalamka la iskaga jiro alxamdulillah wallahi nimco badan iyo naxariis badan ayaa taala dacwada diinta ka socota alxamdulillah wallahi qalbigii ku dagay wallahi dadka halka ka dawanay maxaad u baqaysaa dadka dhalinyarada ay daawanayaan tamuuqayga garanaysa waxaan kan u sheegi lahaa inay ka faa'iideystaan insha Allah ijtimaaca dambe ay maadaana iga soo qayb galaan khayr soo dhow magacaada ku bilaabaya xaqada ka socotaa maxaad kale ku darsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه يضل سلامي ومدة إسلام كملوا لي توجان تغييرات هذا يو ضد كوح لنا واحد جالسينيا شنطة صومالية هرتا ميل ولا يتوجان با ميل كستر مدة إسلام كون وضع نولين أدبان وضع سلامي مركب هذا ميل بانكو ترسني عيون يو شنطة صومالية ميل يسوق مع دور تهاد بلوه وكراس وأنا قد مهمة شنطة صومالية مش كري يسوي مادين وما كمان تاكو رجني يقعد نقول بك الصداع ومركز كا ألكن كل مين دين الإسلام waxaan u baahnay dawlad islaama oo kitaabka Allah ilaahay Maxamed Rasuulullah nagu xukunta oo nagu amarta oo dariiqa rasuulkana aan ku dhaqanno sidaan maanta walaalideen intee nooga soo qayb galeen aad baan ugu faraxsanahay arko umma Soomaaliyeed oo midaysan waana salaamaya dhamaan soo dhow magaca ku bilow xalqada ka socota magacayga Cabdiraxmaan Maxamed Kiisa xalqada 15aad insha Allah sida ilaahay ijtimaaca inaan tadabayno keeno oo dadaal diineed fikir diineed abaabul diineed anu walaalowno waayo majaadiyada dhan bal sireen Palestine India duyada dhan bal iska yimi inaan dhamaanteen xilka qaadno aan xilka caalamka dhan gaarsiin ilaahay baynu ka amray insha Allah in xilka gaarsiino aan
عن وضنا إن شاء الله مستعدين إن شاء الله وأنا آيات بن سلامة يا بيش أنا سوف لو جريا الله يجتي شرشنا هجي لابني أنا magacaygu yaa cabdinajib xamed jaamac oo aan ku faraxsanahay inaan istimaaca ka soo qayb galo sanadkii labaad anoo ka yimid magaalada Lafacisay Itoobiya sidaa daraadeed istimaaca kulanka islaam aan ku faraxsanahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وعبد الساس سليمان aad baan u faraxsanahay ismaaca ka soo qayb galo waa sanadkii saddexaad ka soo qayb galo ma sha Allah aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa soo dhawaad saaxiib yaal mar kale waxaa garabkayga taagan nin ka mid ah ama nin dhalinyaro ka mid ah dadka ka soo qayb galay kulankan khayriga ee ijtimaaciga magaalada iska dhacaya soo dhawaad magacaaga adoo ku bilaabaya xalqada ka socota waan dhawey walaal magacaygu waxa weeye suldaan cabdalle waxaan ka socdaa xalaqada toddobaad gaar ahaan masjid khaalid bin milid baan ka socdaa maasha Allah ijtimaacu waa ka dhacay waa maalintii ugu dambeysay kole maanta waa sabtigeed maalintaas axadda meelahaas la duceeyaa gelinka hore ilaa sagaalka meelahaas u dhammaadaa juhdiga ijtimaaca waad garanaysaa meel walba ka dhaca afrika kan baa ugu weyn ijtimaacaas ummad dhan buu ilaahay ku mideeyey ummaddaa dhan wax kale uma iman dar ilaahay bay yimaadeen qaar baa maraykanka ka yimid qaar baa meel walba ka yimid qaar baa etoobiya ka yimid qaar baa Soomaaliya meel walba caalamka oo dhan waa laga kala yimaada marka dadkaasi waxay u imanayaan waa dacwad juhdi dacwadeed iyo ajlidiin qaar baa intaasoo kunoo diyaaradood qarash ku soo bixiyey diyaarado soo raacay dadka carabta jooga meesha kulli diyaaraday soo wada raacay marka ilaahay mahadi weeye wax lagu shukriyo weeye dacwadiina marka kor bay u kacday dacwadda ninka sidaa maaragtay ilqaloocda ku eeg ilaahay baa ilqalooca ku eegaya waayo waa shaqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam shaqadii nebiga weeye qofka shaqadii nebiga maaragtay waa kuwii nimankii dee gaaladee yuhuudda oo kii nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo juhdiga dacwadda ku jira oo kii waxay doonaan ku odhan jireen diinta loo soo dhibay wada garan ambiyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo si kasta loo soo dhibooday ay diinta ku dhibeen marka dacwadda waa meel walba la iskugu imanayaa alla waxaa ummadee adeerkiisa kumanaanka qof iskugu yimaada halka cid is-xiriiriyeysa cid kala cabanaysa ma jirto waa dad isku mabdaa isku waxaan kuri juhdigaas unbaa laga wada fikirayaa lagu wada qiirisaya lagu wada dikriyaya dee wakaa acmaal diineed ba ka socota marka waxaan leeyahay ummadda kale insha Allah inay sanad walba ka soo qayb galaan anigu ilaa dhowr iyo toban ijtimaac waan ka qayb galay xamar waan ka qayb galaa Itoobiya waan ka qayb galaa kameel walba waan ka qayb galay intan waan ka qayb galay agaarka waxaan leeyahay insha Allah sanadkiisa alla nabad nagu gaarsiiyo insha Allah imakana wuu dhacay ijtimaac wuu dhammaaday berri baa insha Allah lagu ducaynayaa taqabbal Allah waxaa ku bilaabaya halkee ka socotaa magaalada ka timaaday markii ugu horeysa mise marka loo jiray السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركب رأي الله بما تسكلم مركب نمان إذا كان يدي مهد عليا ما يوحى كيمي جبوتي وان كيمي مقع يقولون وحويا قولي عبد الله ما شاء الله وحني من 4 دي بنهرقسن نمد ما تنوى الصبتي أفرت عشان شوقنا والله يعني ومركي كوباد أنا جيجورسي محدا سومال أنا يمدو يعني كل كان أنا يمدنا ويكو مركا وحياة بدن يعني سيدي مركي ورا يعني نولش إذا نوقف مسلنا هذا ما أنت وحياة بدن بيك الدون ما أنت دوحنا يقفك يعني نولش شيء وحكسه بالدلية